كلنا وكلن تعسيدات أنو تعسيينه إن شاء الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ عبد الناصر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. inta inaan kulanka aynaan galin tacsida iyo hawsha waxa inooga horeyn doona آيات من ذكر الحكيم ونو أخرين دون إن شاء الله تبارك وتعالى القارئ الشيخ عبد القادر محمد جامع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن صار على دربه ونهجه إلى يوم الدين. وحن لنا أولا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل. إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته الشيخ عبد الناصر حاج أحمد يوسف ونمالين يا صوماليدو قف شخصيا ويقاني يقف آلات كان لإسكا داوضة بصوماليدو ووضا يقانين أقوم بدن أنو شيخ ومالهين لكن معرفة بدن بالولي يا الشيخة شيخو sida dadka wax ka qoray taariikhdiisa qof Soomaaliyeed baa wuxuu ka diyaariyay risaalo magister oo ka diyaariyay sheekha noloshiisi iyo taariikhdiisi sheekha waxa la 1957 buu gobolka Cayn baadiyaheeda ku dhashay shantii sano hore kadib waxa la keenay meel la yiraahdo Horfadhi halkaas madrasad tahfiidul quraan laga geeyay شيخ القرآن كودي وحال ديه جري عبد الله جراد صوفي شان يتوبن جزء بوقاتي إلى عمر جسم مركو تضبط صناعة شيخ كدي بخيركو حيوسو جورين بالليل مجال برعو ومسايك اللي صالحية ده حرم المجع إلى هذه الجيران مالينيا بوشيخ القرآن كي كودا ما يسترتي وده سنة جوده هذا sanadkii taariikhu markay ahayd 1965 qoys wuxuu u guuray magaalada Barbara halka sheekhu wuxuu galay ama la geeyay iskuul dhihi jiray Al-Falah an-Namudajiya iskuulkii culumta badan kulmisanayay muddo 2 sano buu magaalada joogay oo dugsiga hoose uu ku soo qaatay masaajida magaalada Burcana duruus buu ka akhrisan jiray magaalada Barbara 1967 ayuu sheekhu mar kale dib ugu soo noqday magaalada Burco halka oo iskuul raacsana nidaamka azhariga ah oo sheekhu imtixaan u galay waana ku baasay halkaas ayuu sheekhu ku dhameystay iskuulkii dhexe iyo sare labaduba manhajka azhariga ah magaalada Burco inta uu joogay sheekhu دروس علمية وشرعية أيو مساجد كقادن جري سيدان اللي ليه جري قاضي محمود يا شريف محمد لمن علماء ومقعيات لها أيو كبرت انتو ثانوية ده يدوكسي قد حد جري انت وحي كدن بيي مركو معد كدن بيي أزهرية وثانوية ده دوكسي قصري شيخ وحوسو قوري مقالة ده مقدشو هالكاس حلقات كعلمية شرعية وحلقة كجري بلوغي تدوات ميدي أيو شيخ كتحمي علماء سنة وحاكمها شيخ إبراهيم سولي رحمة الله عليه شيخ محمد معلم رحمة الله عليه يا شيخ محمد نور قوي وعلماء سيدتك صومالي جوايا قانين شيخ إبراهيم سولي نيك وهري كتاب كرياض صالحين كمقالات مقدشة بالله بيبوها شيخ محمد معلم ومعروف للمفسر أبوها وعقيدة ذي آخرين جري تفسير كيو
sheekh maxamed nuur qawi nin wuxuu ahaa wadanka Itoobiya ka yimid dadka muslimiinta walaalaheena oramada inuu habaan u maleynaya cilmiga xadiidku aad u yaqaan sheekh culimadaas ayuu si fiican wax uga bartay bilowgii 700 sheekh wuxuu ka mid noqday ciidankii Soomaaliya oo dagaalkii lala galay Itoobiya ayuu ka qayb qaatay oo waliba qaa'id buu ahaa raxmatullaahi calayhi 82kii ayuu sheekhu u wareegay wadanka Yaman oo halkaas uu ka ahaa muallim macaahidda sharciga ah oo wadanka Yaman ayuu wax ka dhigi jiray isagana culimada reer Yaman ayuu wax ka baran jiray raga culimada uu ahaa waxa kamid ah nin la jiray qaadi Yahya waxa kamid ahaa ninkii muftiga reer Yaman ee hadda dhintay Maxamed Ismaaciil Cumraan la dhigi jiray waxa kamid ahaa Maxamed Xasan Maqbuul al-Ahdal nin la yiraahdo waxa kamid ahaa Cabdulwahab ad-Daylami la dhigi jiray raxmatullaahi calayhi mar dhow isna dhintay sheekhu dacwo badan iyo khayr badan buu Yaman ka waday wasaaradda arrimaha diinta ee Yaman waxay ka dhigtay qofka koobaad ee jaaliyada Soomaalida wax laga weydiinay 10 sano oo Yaman joogay masjid la dhihi jiray Az-Zubayri oo magaaladu sheekhu deganaa ku yaalay isagun baa wax ka akhriin jiray qadaayaadka Soomaaliga diinigana sheekha wax laga weydiin jiray 10 sano oo Yaman sheekhu ku sugnaa kadib burburkii Soomaaliya ayuu sheekhu wadanka dib ugu soo laabtay oo juhud badan oo dacwi oo bilaabay taa insha Allah taala waxaan u deyn doonaa raga iga dambeeya laakiin wax yaro iska tacliiq ah sheekh raxmatullaahi calayhi dadkii yaqaanay baa yaqaana nin caalim abuu ahaa gaar ahaan fiqhiga madhab imaam Shaafici aad u yaqaana waxa yeelay sheekhiisa wuxuu ahaa Maxamed Ismaaciil Cumraani oo faqiih Yaman ahaa madhabka Shaaficiyada aad u yaqaanay sheekhu juhud dacwi iyo aathar tayyiba ayuu Soomaaliya kaga tagay magaalo walba oo Soomaaliyeed ardadiisa aad ku arkaysaa sheekh waxyaabihii lagu yaqaan waxa kamid ah nin adduunyada mashquul ku ama ahayn intuu noolaa nin iska basiid ah dadka inuu diinta gaarsiiyo dadka inuu wax bara ayuu u noolaa nin adduunya ma ahayn inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allahumma ajirna fi musibatina واخلفنا خيرا منها الحمد لله ثم الحمد لله إله بمهل سبحانه وتعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ليال شيخنا معلم كيجي يا شيخ كيجي شيخ عبد الناصر حاج أحمد يوسف ورنتي تاريخ صدن سنة كله أن أردقي ساعها لأن نقول لهاي معك إعداد الدعاة لصعانات الفرقان حاليا iyo haday noqon lahayd xalaqaadkii masaajidda barakaysan sida masjid al-huda fi las'aanood masjidka jaamica ee saalixiyada ee fi las'aanood iyo masaajidda kaleeto oo runtii masjid rawda fi boosaaso masjid al-huda fi garowe iyo waqayrihim min al-masaajid wal macaahid wal jaamicaat intaba runtii aan arday u noqday oo hoos fariistay muddadaas 30 sano ah oo runtii burburkii wixii ka dambeeyayna runtii arday aan u ahaa Sheekh Cabdi Naasir wax badan baan yaan runtii yaan ka faa'iideystay wax badan baan soo wada joognay sheekhayga oo runtii aad iyo aad wada sheekaysi hoose iyo kalsooni ardaynimo dhaafsiisan buu ahaa waan iswaci jirnay sheekha runtii markii ugu horeysay anigu aan bartay sheekha abaarihii 93kii 94kii baan bartay sheekha magaalada Laascaanood baan ku bartay sheekhu fatradaas fatro runtii burbur ah oo bacda inhiyaar الحكومة المركزية في الصومال oo runtii wax walba ay burbureen oo muassasaadkii tacliimiga ah burbureen oo madaaristii iskuuladii burbureen oo jaamacaadkii ay burbureen oo dalkii ragii maalinka ka qaxayba inala joogay kala haad iyo kala dhoof iyo kala carar iyo qax iyo qaxooti lagu jiro
ayuu sheekh cabdinaasir qadiyo runtii noqon kara fariida fi nawciha ayuu dalka ku soo laabtay sidii sheekh cabdinaasir ba sheegay asagoo macallin iyo daaci iyo sheekh ka ahaa Yaman muddo dheer markuu dalka ku soo laabtay saddex waxyaalood ba ugu muhiimsan waxyaalihii runtii uu caanka ku ah mid koobaad waxay ahayd in uu watay manhaj tasxiixi ah oo runtii silmi ah oo wasati ah oo miyir qab ah oo runtii i'tidaal ah oo runtii manhajka ahlu sunna wal jamaa oo manhaj salaf hadhihi al-umma ka tarjamaya ayuu la soo laabtay oo naxariista isoo dhaweynta iyo maxaan ku dhahay dadka culimada kaleeto shaayikhdii sii hore culimadii dalka sii joogtay masaajida tiyaraadka kala duwan iyo rag xereedka kala duwan intaba nin la fariista oo wax la akhrista oo wax u akhriya oo runtii wuxuu ahaa nooc runtii ka duwanayd fatradaas markii la marayay shakhsi laab waasic leh ayuu ah اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أولا إلهي سبحانه وتعالى شيخنا ونحرسته حنده كراه عاش حميدا ومات شهيدا نلل ونكسن والله شكي ومحدثن وجهودات كيسي يوددالدي سرنتي علماء way ka sheekaysan laakiin marka la kulantid runtii taasiir labaad bay ku sameeyaysaa muxuu ahaayay waalidkay ma dhiman laakiin murugo iga badan ma arkin geerida sheekha ilaahay ha naxariisto muddo lahaa muddada uu lahaana buu ku dhiman lahaa isagoo calooshooyada ku jira 120 habeen baa la qoray goorta uu dhimanayo looga murugo ma isaga waxaan isleeyahay meeshii ilaahay ugu tala galay oo wanaag badan buu jooga hadda laakiin cidda runtii tabaysa waa inagii dad si mubaasharatan ula noolaa oo cilmigiisa qaatay iyo dad si samaaca ku gaadhayba laakiin runtii waxa u baahanahay in laga qaato duruus noloshiisi si aynu u helo Cabdinaasir badan isagu waa dhintay laakiin in la dadaalo loo duceeyo kadibna dadka laayay horta awalan inuu habaarno kulay garamayna hadeer midabkooda say u eegyihiin shakhsiyan u garamayno laakiin ilaahay baa garanaya oo aan waxba ka qarsoomeyn ummadda Soomaaliyeed runtii talay u baahan tahay oo dadka culimadooda iyo dheergaradkooda ugaarsanaya ee raba dadkan in dhaha ka ridaan maalin kasta inaan isu nimaadno tacsiid dirno waxa ka fiican alwiqaayatu khayru min alcilaaj in laga hortag laga sameeyo intii cilaaj muxuu ahaaye la dooni lahaa dhow marka cudurku dhacay la daweeyo marka runtii in la baraarugo oo culimo badan inta la yaqaano ama inta caanka aynu arkano in badan baa jirta oo meelaha lagu leynayo oo muxuu ahaaye iyaguna aathar iyo raadad badan ka tagi lahaa marka awalan walaalayaal runtii Cabdinaasir ardaysi maan ka mid ahayn aniga muuqaalkiisa waxa igu dambeysay bishii November ee sanadkii tagay dhexdeedii maqalkiisana waxa igu dambeeyay talaadii la dilay talaadii oo isagoo xamar joogo Kismaayo aadaya baan ismaqalay laba kitaab uu soo dirtay igu lahaa baan rabay inaad soo dhiibtid oo halkan iga soo dhiibtid taas ay igu dambeysay oo laha Kismaayo aadaya marka runtii markaad aragtid sheekha tacaamulkiisa wuxuu ahaa nin waqtigiisa oo dhan buuxiya hadeer bardawada la sacaan tagay jadwalkiisa hal maalin ama hal firaaq oo uu lahaa ma jirin habeenkii wuxuu akhriyi jiray tafsiir saddex habeen hore dambena Bukhari buu akhriyi jiray wuxuu akhriyi jiray aroortii kitaab sunan Abu Daawud dhuhurkii wuxuu akhriyi jiray muxuu ahaayay silsilada fiqiya intaas oo dhan waxa uu dheeray inuu macadka xiisada ku lahaa maalmaha qaar jaamacaadka xiisada ku lahaa haddana intaas oo dhan nin xaasas leh nin arrimihii bulshada ka shaqeynaya jawlaadka haddana waxa uu dheeraa jawlaadka dacwadeed oo ay makhraatiidin ku tahay meesha maniyada ku afsatay runtii الأنبياء والمرسلين أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan ka tacsiyeynaa walaalkeen Sheekh Cabdinaasir Axmed Xaaji Axmed Yaasiin waxaan uga tacsiyeynaa si kaliya laab leh anigu wali waxaan kamid ahaa raggii aadka u yaqaanay ilaa 92 baan isnaqaanay wax badan baan soo wada marnay
waa nin dacawi u ahaa haddana mujaahid ahaa laakiin maadaama ka jaalid ahaan halkan aynu ku noolahay tacsidaas aynu ku biiranaynaa marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ummadda soomaaliyeed shiiqa samir iimaana ka siiyo khaasatanna deegaanka uu ku noolaa iyo dadkii ehelkaa uu ka tegey si khaasa ilaahay maaragtay samir ha uga siiyo waxaan leeyahay oo kaleeto si yargii ugu horreeyay ay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynaa ninkaas ciddii fikri ahaan iyo maadi ahaan iyo gacan ahaanba dilkiisa ka qayb qaadatay ilaahay subxaanahu watacaala inuu adduunka iyo aakhiraba cadaab ku soo saaro taasna intaasaan ka leeyahay intaa kadib laba nuqda baan rabaa inaan ka iraahdo wadaadka dhimashadiisa laba arrimood baa ka dhalanaysa midii waa siiradiisii raggii ugu horreeyeyna waa tilmaameen arrintaas hamigiisii soomaalinimo ku aadana ama dacwo ha noqdo ama masaalixda ummadda ha noqdo in la qaadaa loo baahan yahay arrintaas oo raggiinan hadda meesha fadhiyo dhallinyarada ah oo weliba jaanis ku helay inay wax bartaan in hamigaa la qaado oo meelaha hoose ee sheekooyinkeenu u badan yihiin intii laga baxo in kor loo baxo oo hamigaas ninkaas iyo raggii lamidka ah la xambaaro baa waajibina ku ah midda labaad oo kaleeto oo aan rabo runtii inaan wax yar caddeeyo waxa weeye culamada soomaalida nin baan waxaan ka maqlay soomaaliya oo khudbaynaya maalin nin kasta oo culamada xijaas caan baxay nin soomaaliya baa la galaasahaa ama wuu ka aqoon badnaayo macnaha wuu ka maskax badnaa ama lamid buuba ahaa laakiin ninkaasi waxa u sahlay inuu caan baxo ardadiisii baa nashrisay cilmigiisii oo macnaha waxa weeye markuu dhintay ama intuu noolaaba qaaday macnaha cilmigiisii oo qodhay oo ku dadaalay macnaha innaga marka cilada ina haysato oo dhibka ina haysato waxa weeye culimadeeni waa tegayaan cilmigii bay la tegayaan oo halkaas ugu dambaysa taasidaas ugu dambaysa marka anigu waxaan ku talin lahaa raggiina halkan fadhiyo oo khaasatan luqada carabiga ilaahay u sahlay inay bartaan sharaa inay bartaan ilaa masta ilaa doctora gaaray in arrinta laga fakiro culimadu intay dhintaan inaysan cilmiga la dhiman ee cilmigoodii la qoro intaasaan macnaha ku dari lahaa arrintaas noqdadaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay subxaana watacaala waxaynu u weydiinaynaa inuu u naxariisto sheekheeni sheekh cabdinaasir xaaji axmed hadalka ma rabo inaan badiyo oo xilli dambe laakiin waxaan rabaa inaan dhowr kelmadood kusoo koobo sheekh cabdinaasir runtii lama odhan karo waxau ahaa hal qof ama waxau ahaa sheekh cabdinaasir waxaa lagu sifayn karaa inuu ahaa ummad ama bulsho ama qof waxa uu ahaa ka ballaadhan in la yidhaahdo hal qof waxaan ku arkay intaan ardaygiisa ahaa hamigii faraha badnaa ee uu ka fahmin jiray ama ka hadli jiray deegaanka uu ku nool yahay iyo inta soke in ka ballaadhan oo soomaali muslimiin meelo mataqaanaa caalamka o dhan meel aada u sarraysa sheekh cabdinaasir intuu noolaa kumay koobnayn noloshiisu wadaadnimo iyo kitaabka iyo masaajidka sida inta badan ay culimo badani tahay laakiin waxa uu ahaa shaksi bulshada dhan kastoo ay noqoto kaga jira waxa uu ku mashquulsanaan jiray intaas nabadayn beeleed heshiisiyo maga la kala qaadayo dad la heshiisiinayo dad dhulal xataa isku haysto mataqaanaa kusoo qancaya inay sheekh cabdinaasir u tagaan intay meelaha kale o dhan kasoo wareegaan baa la arki jiray waxaanu u tacsiyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba sheekheennii weynaa raxmatullaahi tabaaraka watacaala calayhi waxaanu leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin biajalin musammaa qof wakhtigiisa dhaafaya ma jiro haddii la ilaaliyo haddaan la ilaalininba qof wakhtigiisii dhaafaya ma jiro qof walba wakhti buu leeyahay muxadada qaada beriisa hadday adduunka kaaga harsan tahay ma baxaysid laakiin si kasta oo aad yeesho hadday kaa dhammaato waad ka baxaysaa adduunkan intii ilaahay qoray inuu noolaado sheekhu waa noolaa haddii ilaahay intaasuna ilaahay u qadaray inuu noolaado ilaahay subxaanahu watacaalaana intaas inuu inagu bara wanaagga aan sheekha ka baranay ayuu ugu talagalay wixii ka dambeeyana waxay noqotay inuu sheekhu halkaa ku baxo waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariiso ilaahay subxaanahu watacaala ummadda soomaaliyeed meel kasta daafaha caalamka kasoo ducaysa ducadooda allah u aqbalo shahaadadiisa allah u aqbalo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo qabriga allah u waasiciyo dhammaan ummaddii ka horreysay ee dacwadana
ay wada wadeen ay saaxiibada ahaayeen runtii gacan ka xaqdaran ay dishay ee ka horreeyeen allah u naxariiso saaxiibadiiba u tagay ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhammaantood allah u naxariiso qabrigooda allah u nuuriyo qabrigooda allah u nuuriyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meel kasta joogan waa ka tacsiinayna waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun